وأنا سلام لما صاحب بدها كوحنا جنال كان آدي يعني كمان علنا سيدا وناسنا دول سعطان مقالة برتان صودقو سيدا بعد صاحبي المانتا وحربنا ندلو دا وش يكون كي ود بيار مع أفلامتا بس أنت وجود قليل مقال كي عن كعسنا أنا جنال كصوب برتو مقال كذا كيش لاقي نصار سيشير قليل ولو ذاك أصحاب هذا سونا بعد صاحبي sheekadu ugu horeysa muuqaalkeena ku bilaabi doono waxa weeyaan waxa shaac laga qaaday sir hore u duugnay taas oo ku saabsan filimka Dilwale Dulhaniya Jangi oo mid kamid ah aflaamta ugu caansan Hindiya ay sameysay marka la eego Bollywoodka Shah Rukh Khan iyo sidoo kale Kajol ayaan hogaamiyalka filimkaasi sida shaac laga qaaday filimkan waxaa jira filim ka horeeyay magacaan buugatay kaas oo la daawaday sanadii 1980 marka la eego Dilwale Dulhaniya Jangi 80 la daawaday filimkaasi wuxuu soo baxay 80 waxaana soo saaray ka ninka lagu magacaabo Rajendra Singh sidoo kale waxa qayb kale ah oo soo saar ka ah ninka lagu magacaabo Kishore Zengal waxa jira filimkaasi gabdho ay kamid yihiin Beena Banjari Tariq Shah sidoo kale Desh Kuwatam sida xogtan qortay shabakada IMDb ayaa waxay soo bandhigtay posterka ama kaartada filimkaasi xog kale ay sameysay ama yani research ay sameysay shabakada caanka ee Bollywood Hungama ayaa sidoo kale waxay shaac ka qaaday in xog ay ka heleen bog lagu magacaabo Keta Kosh sida uu sheegay taariikhyahanka iyo qoraaga weyn ee lagu magacaabo Azoja ayaa sheegay in buuga Keta Kosh lagu xusay heesaha filimkaasi Dilwale Dulhaniya Jangi oo sanadii 1980 la daawaday filimkani waxa uu helay ogolaanshaha in tiyaatarada laga daawado 30kii Janaayo sanadii 1980 filimkaasi saacadaha uu soconayay waxa lagu sheegay 2 saac iyo 45 daqiiqo waxaa la tilmaamay nooca filimkaasi inuu ahaa nooc يعني فيلم بلشة هان قام نوع من البلشة أو الجعل يسيدو كلا دخن يعني دخن عمل أيوها هسا فيلم كاسي كجري وحلقة حسية هسا كمية تعلود ليا يسيدو كلا زونا ري هسا لو مقعاو مركا لاقو موضوع أي هسا فيلم كاسي يكون شغال وجدت كصباح ومبنى إنه أها شيء كجعل سيدا فيلم شاه رخ خان وسميه سنة يكون شغال بوصلاشن الشنتي كاجل يأسيجي هو جامعش كود هاين سيدا شاع لقى قاضي جلاها شكله لقى حس فيلم lagu magacaabo Dilwale Dulhaniya Jangi oo la daawaday 80kii waxa qayb ka ah ama kamid ah ninka lagu magacaabo Ashok Nath Barfisk Malik Madhumida Kafita Kiran sidoo kale Mandana marka la eegana filimkaasi dadka uu caansan ee ku jira waa gabadha lagu magacaabo Beena Banerjee taasoo ka soo muuqata aflaam caan ah aflaamta ay ka soo muuqata kuwa ugu caansan waxaa kamid ah filimka lagu magacaabo Kiladi ama taxanaha Kiladi oo Shah Rukh yani Akshay Kumar hogaamiye ka sanadii 1992 soo baxay sidoo kale aflaam uu kamid yahay ay ka soo muuqatay Koymilka oo 2003 soo baxay Lajla oo 2002 soo baxay Karma oo 86 soo baxay Qiyamad waa filimkii lagu soo caanbaxshay ninka lagu magacaabo Amir Khan ay qayb ka ahayd gabadhaas lagu magacaabo Binara Bijra sidoo kale gabadhan dhanka telefishinada ama musalsaladana aflaam badan ama taxanayaal badan ay ka sameysay saaxiibyaal marka la soo koobo xogta filimkan 80kii soo baxay Dilwale Dulhaniya Jangi waa mid aad u yar balse cadeemaha buuga lagu xusay Keta Kosh waxa uu muujinayaa inuu dhabaxaantii la sii daayay waan xaqiiqo taasoo ku saabsan filimka Dilwale Dulhaniya Jangi oo soo baxay sanadii 1980kii marka meesha waxa ka cad in filimka Dilwale Dulhaniya Jangi ee Shah Rukh Khan hogaamiye ka ah laga horeeyay magaca ama title-ka kaasoo ahaa film hore loo sameeyay 80kii hadaba intaas ayaan soo gabagabeeyay muuqaalkayga fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar si share gareey wala wadaag asxaabtaada aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena